dowladda Turkiga ayaa dhaqaale aad u badan ku bixinaysa shirkad qaabilsan hubka oo ay leeyihiin hay'adaha difaaca ee dalkaasi taasoo lagu magacaabo Nera Industry. Hubkan ayaa la sheegay inuu yahay nuclear gantaalo ay dowladda Turkiga ku doonayso in ay ku sii xoojiso awoodeeda ciidan. Waxaa dowladda u qorshaysan 1.6 bilyan iyadoo oo muddada loo qabtay in lagu sameeyo uu yahay 6 sano oo kaliya. Haddii ay waqtigaasi ku dhameyn waayaan waxaa loogu darayaa muddo 3 sano. muddadaasi haddii ay ku dhameyn waayaan shirkadu waxay mutaysan doontaa ganaax aan la shaacin waxa uu noqon karo. shirkadda ayaa dhisi doonta xarun hor leh oo loo asteeyay sameynta hubkan iyo waliba naqshadeyntiisa waxaana qayb ka noqon doona gaadiid dagaal oo casri ah. waxa uu dhulku ku fariisan doonaa 12,000 square meter. marka mashruucan lagu rakibayo qalabka military ee 12 square meter-ka la dhameeyo kaasoo lagu rakibi doono magaalada Ankara ayaa waxaa la filayaa in la shaqaaleysiiyo 620 qof isla markaana waxaa lagu rajo weyn yahay in qalabkani uu sanadkiiba soo saaro in ka badan 100 milyan oo sensor oo ah qalabka lagu rakibo raadeerada iyo waliba 5,500 oo laysar oo wax lagu baaro. sidoo kale 3,000 oo qalabka loo yaqaan CBRN-ka oo ah qalab baarid iyo wax kala shaandhayn isugu jira iyo waliba 32,000 oo qalabka la isaga difaaca gantaalaha ah. warshada Nero qalabkeeda CBRN-ka ayaa loo isticmaali karaa ujeedooyin military iyo mid shacab intaba si qalabkaasi uu u sheego hubka biologiga ee wax burburiya. qalabka raadeerka waxa kale uu sheegayaa ama ka sii digaya shilalka iyo beerdareynta dareerayaasha warshada. qalabkan waxa uu geeska kale hawlo nadiifin iyo filtreyn u siinaya deegaanka isagoo oo nuugaya naqaska wasaqaysan ee ku baxaya hawada. sidaasi waxa sheegtay shirkadda Nero. shirkadan waxay leedahay wax soo saar ballaaran iyo xarunta R&D oo ku taala Istanbul iyo warshad wax soo saar oo ku taala waqooyi galbeed gobolka Sakaraya ee dalka Turkiga. dowladda Turkiga ayaa si laba jibaaraysa sare u qaadida tayada ciidankeeda iyo qalabkeeda military waxaana dowladda Turkiga u muuqataa mid iminka ka tanaazulaysa inay caalamka ka hesho wax caawimaad ah oo la xiriira dhinaca wax soo saarka hubka oo ay gaarto heer isku filaansho.